بسم الله الرحمن الرحيم كلنتون wanaagsan daawadayaal meel walba joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka subaxlaa maanta aad nagala socotaan TV-ga New Africa qaybta saafka Soomaaliga subax walba bal barnaamijka waxa kale ila tahay walaashada Amiira aad iyo aad baa mahadsantahay Cabdi subax wanaagsan dhammaan meel kasta joogtaan subax iyo suuban baan idin leenahay qaybaha maanta kusoo qaadana wararka iyo qaybta arrimaha bulshada qaybta ciyaaraha bal kusoo dhawaada qaybta arrimaha qaybta wararka bal intaan u gudbin qaybta wararka guud ahaan bal kusoo dhawaada cimilada maanta ee halka ay marayso guud ahaan daawadayaal kusoo dhawaada qaybteeda wararka faahfaahinta wararka maanta waxaan idinku haynaa dawladda Soomaaliya iyo Itoobiya diiday inay saxeexaan xeer ka mid ah xeerarka xoolaha iskalka xoolaha ee IGAD haddana marka hore aan ka hadalno ururka IGAD wuxuu asaasmay 1996 wuxuu ka koobnaa dalka Suudaan, Soomaaliya, Djibouti iyo Kenya dib waxa ku sii kordhay dawladaha Koonfur Suudaan, Eritrea, Ethiopia iyo Kenya Uganda waxaa wakiilada dib haddaan soo noqo warkayga wakiilada ka kala socda Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa diiday xeerka xoolo dhaqatada isdhexgalka xoolo dhaqatada ee dalalkaas oo la sheegay Cabdi in xoolaha loo furayo dal kasta inay galaan bal shuruudo taa maxay keeni kartaa guud ahaan Amiir waa madsantahay markaan fiiran dhanka iyo xoolo dhaqatada iyo meesha dhaxgalka guud ahaan ba sidaan ognahay dawladda Soomaaliya iyo Itoobiya way ka duwan tahay oo markii loo fiiriyo dawladaha kale maxaa yeelay dawladda Soomaaliya iyo dawladda Kenya ama Itoobiya waa dawlad markaa dhanka iyo federalismka ee ku dhaqanta guud ahaanba sidii marka ayaga xeerka ama kaga soo horjeesteen guud ahaanba marka ay ku tilmaameen in dhibaato ay ku tahay Soomaaliya iyo Itoobiya guud ahaan ay ku sheegeen in mar walba ayaga ay ku xiran yihiin dawlad goboleedyo marka ay dhaheen ilaa dawlad goboleedyada marka wadanka ka jira ama Itoobiya ka jira ama Soomaaliya ka jira ilaa meesha laga helo dhameystir guud ahaan ama ogolaasho marka dhameystiran oo dawlad goboleedyada maadaama ay ku xiran yihiin dawladda Soomaaliya kaligeed aan go'aan inaan qaadan karin guud ahaan maadaama xoolo dhaqatada sidaan ognahay meel walba way joogaan guud ahaan marka sidaa darteed taa umbe ka dhigeen in marka asaasi ay ka dhigtaan asaasi ay ka dhigeen in suurtagal ay u noqoneen in ayaga marka kaligood go'aan iska gaareen marka dhanka iyo gobolka iska ogolaada sidaan ognahay gobolka marka la waa IGAD ee marka dadka ku heshiiyay guud ahaan marka inay sameystaan mid isku xiran iyo marka
wada socod iyo waxyaalo fara badan baa jira markaa dhanka laygana la kala diido dhanka iyo lacagta isku midka ah isdhexgalka guud ahaan gawaarida isdhaafka waxyaalo fara badan baa jira markaa wali la dhex marayo laakiin qodobka ugu horeeyay markaa si fiican isku soo qaado ee markaa Soomaaliya iyo Ethiopia kaga soo horjeesatay dawladaha kale markaa igad ku jira guud ahaanba ayagoo markaa ku astaana dhaheen in ay suurtagal ahayn maadaama Soomaaliya iyo Ethiopia yihiin federalism sida darteed kaligooda go'aan inaan qaadan karin ilaa dawlad goboleedyada ay ka soo dhameen kadib markaa ay u gudbaan guud ahaanba markaa arrinka iyo isdhexgalka dhanka iyo xoolo dhaqatada sidaad ogtahay xoolo dhaqatooyinka saan ognahayba mushkilado aad iyo aad u fara badan dhaac baa ku jira iyo kala qaadasho ama islayn ama qodobyo hore ay kala galeen taa maanay biirin karin dhanka haddana isdhexgallo hadda Kenya ay xoolo dhaqatooyinkeega ay u baxaan Kenya iyo Kenya ka dhacdo xoolaha ama Ethiopia ama meel ama Djibouti ay noo soo gasho laga dhaco maana mushkilado aanay keenin dawladeed bal guud ahaan marka loo fiiriyo ama qaabka marka ay u soo qaateen xataa dawladaha kale ee raba in marka ay isdhexgalaan guud ahaan dhanka ay xoolo dhaqatada waxaa jira sida la hayo xagayga mar walba xagayga meelbow u guura ama u badanya sida darteed ay marka hadalka qodobka ay u keeneen maadaama xoolo dhaqatada mar walba u baahan yihiin meel marka oo dug iyo xagaa ka jiro guud ahaan sidii marka mar walba u gudbaan meelaha kale u gudbaan ayadoo marka amaanka guud ahaanba dawlad walba dawladda kale soo gasho sugayso si sax ah u sugayso ayadana mas'uul ay ka naqanayso taa dawladaha kale inay isku raaceen marka Soomaaliya iyo Ethiopia shay kaliya u diidan oo kaliya waxay ahayd ma aha nan amaan ay marka ay ka baqayaan maxaa yeelay amaanka mar walba waxa damaana qaadaya dawladda marka xoolo dhaqatada marka ayada ay u gudubto guud ahaan laakiin tan ay ka dhawaajiyeen ee marka ay suurtagal ahayn ay sheegeen maadaama federalism aan nahay mani dad marka go'aan toos gaari kara inkastoo Kenya iyo Ethiopia ama Soomaaliya maanta in isku haleen ama isdhexgalaan guud ahaanba isdhexmaraan mar walba xaalad marka aad u adag ay tahay laakiin sabab ahaatee taaba waxay ka dhigteen sheeko asaasi marka ayaga kaga soo horjeeday arrinka Amira bal Cabdi Sattar aan gudubno warkayga labaad oo ah dawladda Sacuudiga oo diiday safiirka loo doortay Soomaaliya taas safiirkaas oo magaciisu yahay Cabdixakiim Xasan Ibraahim Ashkari oo diiday oo gacanta ku sayrtay oo tiri wuxuu xiriir la leeyahay dawladda Qatar safiirka waxa la doortay bishii Maayo bishii shanaad 29keedii waxaana waraaqihiisana la soo saaray ama waraaqaha xaqiijinta inuu safiir yahay 15 Juun sanadkan ilaa 3 bilood iyo dheeraad lama soo jawaabin wasiirka bal Cabdi Sattar safiirkaas Cabdi Sattar oo gacanta ku saydhay Sacuudiga oo la leeyahay Qatar uu xiriir la leeyahay waxa ka waran lahayd guud ahaanba marka loo fiiriyo safiir Ashkar ama Cabdixakiim Ashkar waa marka sidaan ognahay 3 bilood wuxuu ku sugnaa dhanka iyo dalka Sacuudiga aataan asagoo wali aan warqadiisa toos Sacuudiga la gudbin ama marka u ogolaanin guud ahaan inuu marka ka qamid noqdo dhanka iyo danjiro guud ahaan inuu ka shaqeeyo dhanka iyo Sacuudiga laakiin sabab ahaatee hadalada isla xmaraya maadaama asaga safiirka uu ahaa ku xigeenka dhanka iyo wasiir dawlad uu ahaa marka ka shaqeynaa dhanka iyo dawladda sabab ahaatee wuxuu ahaa dhanka iyo arrimaha diinta iyo awqaafta Sacuudiga waxay ku bartilmaameedsanaa waxay leeyihiin ninka xiriir sax wuxuu la lahaa فؤاد ياسين waa naqaana waa ninka hadda xagga amniga guud ahaan ee Soomaaliya haysta ama hay'adda NISA ee Soomaaliya ee ku magacaabay sidaan ognahay Fؤاد Yaasin waxay ku tilmaamay inuu qoto dheer oo leeyahay marka ama gacan saar leeyahay dooxa guud ahaan marka xukuumadiisa waxa fara badan dhanka amaanka ee kula socdaan Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo maxaa la dhihi jiray qadarna wax ka dhaxeeya wada la socotaa oo maxaa yeelay Sacuudiga iyo Imaaraadka xulafa waxay ka soo horjeedaan dhanka iyo qadar dhanka iyo siyaasadda guud ahaanba sida darteed ayadoo marka taa kaga shakiyeen ay wali ilaa hata aanan aqbal warqadaha ka gudbin ama ka qaadan dawladda federaalka Soomaaliya asoo marka mudane Farmaajo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya asagana marka ku saxeeyay sidii u doortaan laakiin sabab ahaatee dawladda Sacuudiga ilaa hatan la dhaxmarayo ayagoo marka ogolaanin inay safiirka u ogolaadaan in danjiro Soomaaliya marka u fariista boqortooyada Sacuudiga guud ahaanba ayadoo taa marka kaga shakiyay dooxa inuu xiriir fara badan la leeyahay dhanka amaanka taa waxa u dheeraada taasoo riyaad bay ahayd haddaan ugu gudubno dhanka Jidda qunsuliyadda Jidda ma dadkii maamulayaasha dhankaas oo loo diiday ee loo magacaabay Muqdisho joogay oo loo diiday in fiisayaasha loo soo saaro taa waxay cadeynaysaa in ay Sacuudiga ay ku gacan saarayso qof kasta oo la xiriir leeyahay Qatar
bal sidaan ognahay waxaa la doortay saan ognahay safiirka cusub ee la doortay wasiirkii hore ee warfaafinta oo kaas iska casilay xilka oo Daahir Maxamuud Geele mana diidaya bis wala aqbalaya bal laga yaabo wax fara badan marka dhanka inay ka dhacaan bal dhanka iyo arinka danjiraha hadda maanta inaan ku naqan waxa laga yaabaa in fara badan marka inay ku qarsan bal marka la si fiican faahfaahin doona marka dhanka kale ugu dubno Faarax Macallim aan ognahay marka waa qof wasiir ka shaqeeyay in fara badan ama ku sugan dhanka iyo Kenya oo marka ka hadla arrimaha Soomaaliya guud ahaan marka mar waliba oo gacan siiyo maadaama in Soomaaliya uu yahay mar walba dhiigga Soomaaliya ee ka muuqato asaga ayaa ugu baaqay Soomaalida guud ahaan marka ganacsatada Soomaaliya ee ku sugan dhanka iyo Kenya inay ganacsigooda ay ka wareegsadaan ee u wareegsadaan dhanka iyo dalalka kale ee marka Afrika ahaato ama caalamka ahaato sidoo marka ku canseeray fara badan oo ku sheegay dhanka iyo Turkiga sidaan ognahay ayuu ku sheegay boqolaal oo ganacsata marka ka shaqeyn jiray dhanka iyo Kenya ay haatan u gudbay dhanka iyo Turkiga ayagoo marka furtay maxaa DJ ama gatay guriyo fara badan marka dhanka Turkiga ka gatay hasaba ahaatay ku sheegay in diyaar u yihiin dad badan marka arrimaan inay guuraan ama u tagaan dalka Turkiga inay ka iibinayaan waxay xeerarka ama siyaasadda cusub ee la soo baxday Kenya oo ku adkeynaysa ama ku cadaadinaysa shacabka Soomaalida ku nool Kenya waxay keentay 150,000 oo qoys inay u guuraan Turkishka qaybta ganacsatooyinka inay u wareejistaan Turkiga iyo Ethiopia wuxuu cadeeyay inuu dhaqaalihii Kenya hoos u dhacay taasoo cadeynaysa in Kenya ay lafdhabar u ahayd ganacsatooyinka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan bal sida dareemaysid Faarax Macallim markii loo fiiriyo iyo dhaqdhaqaaqa oo badan marka baahida badan ee Soomaalida u diraayo iyo qaabka marka uu ku socdo asagoo marka Kenya ku sugan guud ahaanba iyo muhiimada faraha badan ee Soomaalida marka uu leeyahay asagoo marka hadana ku jiro dhanka iyo arrimaha siyaasadda Kenya in badan ka soo shaqeeyay laakiin hasaba ahaatee meesha waxa taagan mar walba inuu leeyahay xaaladda Soomaalida inuu la socdo in fara badan waxaan filayaa ganacsato fara badan Soomaaliya marka la xiriirto guud ahaanba TV-ga inay ogaan doonaan xaalka guud sida uu socdo bal in wahaga ka daawadayaalka wuxuu ahaa wararkii faahfaahsan ee guud ahaanba marka nagu tarkala TV-ga Afrika bal ha ugu dubna dhanka iyo arrimaha bulshada ka hor qadarir haysin isku soo qashawaan عالنكنا صوبا يا السلام يا وقرع سعبدا سفك عيدا كينا حكا قلب كانوا سيدا كالشنقر يا عيدا Somali da hordaysan balline soo jeesadaan odayso labaqa Soomaalideenno isku wada safrayso sadka wada cunayso salaama way ciyaarta saakeese loo dhahaa salaama way ciyaarta saakeese loo dhahaa daawadayaal mar labaad iyo mar saddexaad ku soo dhawaada barnaamijka qoyska iyo arrimaha bulshada guud ahaan baad nagala socotaan TV-ga New Africa qaybtiisa afka Soomaaliya bal inaan ku soo dhaweeyo dhanka iyo arrimaha bulshada Ustaad Amir Cabdisataar saan ognahay waxaan ka hadlaynaa maanta laabatooyinka ama lafaha laabatooyinkeeda oo dhan oo Soomaalida oo dhan ay xanuunto gaar ahaan dumarka sad ogtahay hooyooyinka ay leeyihiin dhabarkan xanuunaya rugagan xanuunaya gacmahan xanuunaya waa gacantiiba qaadi laanahay way bararaya gacmihii bay bararaya gacmihii farihiiba dhaqaajin kari waaye waxyaabaha soo miiran sababta u sababtay iyo maxaa keenay ayaa meesha jira waxaa keena infection ku dhaca laabatooyinka oo dhan oo keenta inay caabuq ay keento qofkaas aanu dhaqdhaqaaqi karin
waxa u dheeraada qofkii oo dhacay hore yaraantiisii ilaa weynaantiisa hadan ka hadalo qofkii oo dhacay oo gacantii meeshii gacmaha ama lugaha waxay gaadheen ama laf dhabarkii tada labaad waxaa jira fangaay gala laabatooyinka dhexdoodii oo sababa inuu qofkii aanu dhaqdhaqaajin karin ama xanuun ka dareemayo laabatooyinka waxa naqaana rheumatismka oo aad Soomaaliyeed ku badan yihiin xagga islaamaha iyo xagga hablaha iyo hooyooyinka xataa odayaasha dad raxno inamadana laftigoodii markii ku badda ciyaaraan inkastoo in Amir rheumatismka marka laga sheekeynayo waxyaalaha ugu fara badan ee waqtiyada marka qofka la soo gudbeen ee taa waqtiyada qowga jiro ama waqtiyada marka qofka insaanka asaga qaabka asaga la tacaamulo maxalli jiray jabiga ee tahay laakiin hasab ahaatee dadka marka ku soo kacay ama guud ahaan ay dareemayaan rheumatismka dhibaatadiisa iyo faraha badan waa marka hawada iyo marka dabeelaha ziyadada ee u socdo qofka laakiin inta ka horeyso laga yaabo inuu caafimaad qabo oo isla meel markaan la tagan dhanka iyo doctorka guud ahaan mushkilada kale ee jirta kubadda marka dhalinyaradu ciyaaraan ayaa waxa dhacaa in infection meesha ku dhaco waxa ugu daranba qofka marka infection ku dhaco dhanka lafaha kaas wuxuu keenaa caabuq iyo xanuun fara badan video fara badan bay dadka soo diyaariyeen maanta laakiin waxa ka soo diyaarinay video ka hadlaya lafa xanuunka ama laabatooyinka waxa sababa iyo waxa keena bal videogaas عبد الستار وانا كسو دوانا toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa haddii Allah yiraahdo xanuunada ku dhaca laabatooyinka waxaa la yiraahdaa meel kasta oo jirkeena kamid ah oo islaaba tusaale ahaan sida faraha kaato sida gacanta kaato sida suxulka kaato sida lugaha kaato iyo meel kasta oo jirkeena kamid ah oo islaaba waxaa ku dhaca xanuunka la yiraahdo arthritis maanta dunida wuxuu ku leeyahay saameyn badan dad badan baa la ildaran dad badan baa la jiran dad badan baa la xanuunsan oo ay dumarku u badan yihiin sidoo kale xanuunkaasi uu ku dhici karaa ragga hadaba arthritis-ka maadaama uu badan yahay uu yahay xanuun aad u badan haddana waxaan ka soo qaadan doonaa 3 qaybood ugu muhiimsan kan koowaad waxaa la yiraahdaa rheumatoid arthritis xanuunkaasi wuxuu ku dhacaa meelaha laabatooyinka tusaale ahaan laf kasta oo is soo laabto waa laba lafood oo isku jiro dabadeedna geesaha waxaa ka haya seeda ayaa ka haya haddana waxaa saaran muruqi ayaa saaran laf kasta dhexdeedana waxaa ku jira biyo ayaa ku jira biyahaasi waxaa saameyn ku yeelanaya ama ku beermanaya maxaa la yiraahdaa germs ama caabuq baa markaasi ku sameysmanaya caabuqaasna waxaa kamid ah mycoplasma ayaa kamid ah dabadeedna waxaa dhaawac soo gaaraya ama burburaya maxaa la yiraahdaa carjawdi biyihina way dhamaanaya kadibna lafihii ayaa isku dhacaya lafihina markay isku dhacaan qofku wuxuu dareemayaa astaamaha soo socdo wuxuu dareemayaa xanuun fara badan ayuu wuxuu ka dareemayaa faraha ayuu ka dareemayaa lugaha ayuu ka dareemayaa meesha uu kaga dhacay maxaa la yiraahdaa rheumatismkan ayuu ka dareemayaa xanuun saa'id ayuu dareemayaa wuxuu dareemayaa barar ayuu ku arkayaa meelaha qaarkood oo 2 ilaa 3 farood oo bararay ama meeshii naftigeedu aad u barartay sidoo kale qofku wuxuu dareemayaa dikan buu dareemayaa lafta ku garaacmayso lafta waxa ka dareemaysa xanuun saa'id ayaa ka dareemaysa rheumatismka waxa lagu gartaa qofka habeenkii markuu seexdo oo subaxii uu soo tooso wuxuu isku arkayaa inuusan durba kici karin lafaha ayaa xanuunaya lafihii baa isgalaya gacmihii baa isgalaya lugihii baa isgalaya qofkii wuxuu sugayaa ilaa saacad ku dhawaad ah buu wuxuu ku sugayaa inta qoraxda ka soo baxayso ama inuu wax kulul cabo ama inuu gacmaha ka shaqeysiyo qofkaasi waxa ku adkaanaysa subaxii durbo xilli hore inuu kaco calaamadaha lagu garan karo waxa kamid ah rheumatismka oo qofku wuxuu isku arkaya wareer buu isku arkaya daal buu isku arkaya qofku wuxuu isku arkaya maxaa la yiraahdaa inuu socodkiisa uu gabay wuxuu arkaya miisaankiisa inuu yaraaday rheumatismkaasi waxa lagu baari karaa inta dhiig laga soo qaado qofka in laga fiiriyo antibody wax la yiraahdo ama anti nuclear maxaa la yiraahdaa antibodies ama rheumatoid factors ayaa la fiirinaya dabadeedna markaas dhaqaatiirta waxay ku ogaan karaan qofkan inuu la ildaran yahay xanuunkan waxa soo haray xanuunka la yiraahdo oo rabaa inaan sharaxo systemic lupus erythematosa xanuunkaasi waa systemic asagana wuxuu saameyn ku yeelan karaa
xubnaha jirka ayuu saameyn ku yeelan karaa. waxaa keeni karta cimilada ayaa keeni karta, qoraxda ayaa keeni karta, oo qofku dhaxal buu u heli karaa. yacni xanuunkani wuxuu saameyn ku yeelan karaa xubnaha jirka oo kaato, tusaale ahaan sida kilyaha oo kaato, sida maqaarka oo kaato, sida maxaa la yirahdaa maskaxda oo kaato ayuu saameyn ku yeelan kartaa, iyo maxaa la dhahaa neerfaha jirka ayuu saameyn ku yeelan kartaa. calaamada lagu garan karo waxaa kamid ah gabdhaha waxaa lagu arkaa haaro ayaa waxaa lagu arkaa wejiga ayaa waxay ku yeelanaysaa haaro. haarahaasna waxaa la moodayaa sidii balanbaalisti oo kaato ayaa ka muuqanayso. maqaarka waxaa lagu arki karaa meelo booga kasoo baxay oo af leh, afkeedana markaas sii baaba'ayso oo kaato. qofku wuxuu isku arkaya cuncun buu isku arkaya, qofkii aragga indhaha ayaa yaraanaya, qofka timihii baa ka daadanaya. sidoo kaato systemic lupus erythematosa hooyada uurka leh hadday qabto waxay khatar u geli kartaa in ilmaha ay kasoo daataan, abortion uu ku dhaco, ama ilmihii inay soo daataan, ama ilmihii inay ka dilmaan ayaa dhici karta. waxaa soo haray xanuunka la yiraahdo osteoarthritis. asaga waa mid yimaada xilliga da-da qofka markuu gaaro 65 ilaa 60 sano ayuu yimaadaa. xanuunkaas asaga naftigiisa saameyn wuxuu ku yeelanayaa xubnaha jirka meelaha iska galaan laabatooyinka qofka inuu xanuun saa'ida ka dareemo ayuu arkayaa. tusaale ahaan welina wuxuu kusii dhacayaa meelaha loowyada ayuu wuxuu ka dareemayaa inuusan socon karin, loowyadii baa markaas isgalaya oo isku dhacaya. waxaana keena da-da keena, waxaa keeni karta miisaanka ayaa keeni kara, waxaa keeni kara stresska ayaa keeni kara, waxaa keeni kara qofka jug inay kasoo gaartaa keeni karta, waxaa keeni karta inaa dhaxashid ayaa keeni kara. haddana qofka dhalinyarada asaga naftigiisana uu isku arki kartaa. marka halkaasi markay ka dhacdo waxaa burburaya lafi ayaa burburaya, carjawdii waa burburaysa. qofkaasna markaasi waxaa khatar u galaya inay lafihiisi ay burburaan, ama in laftii markaasi ama loowyada laga bedelo, ama maxaa la dhahaa miskaha meesha lafaha ay iska galaan ayakana in la bedelo. haddaba see loo daweeyaa? waxaa loo daweeyaa oo ugu muhiimsan qofka waxa weeye inuu jimicsi sameeyo, qofka inuu miisaankiisa yareeyo, qofka inuu maxaa la yirahdaa jimicsi joogta uu sameeyo, si dhiiggiisa xawaaraha dhiigga uu si fiican u shaqeeyo. xubintii haddaysan shaqaynin ama farihii aysan shaqaynin oo aadan jimicsi sameynin, markaasi dee saameyn badan buu kugu yeelanaya xanuunka. laakiin haddaad jimicsi samaysid xanuunka wuu kaa yaraanaya. labo, waxaa isticmaali karta dawooyinka la yiraahdo non-side drugska oo xanuun baabiya ah ayaa iyakan loo isticmaalaa. dabcan dhakhtarkaada ayaa kala tashan doontaa. waxaa jira waxyaaba ugu muhiimsan qofka inuu isticmaalo. kow, wuxuu isticmaalaya qofka oo natural ahaan u isticmaali karata, sida toonta kaato, sida sanjibiisho kaato, sida maxaa la yiraahdaa basasho kaato, sida waxyaabahan kulul oo maxaa la yiraahdaa xabasoodida kaato. waxyaabahaasi oo dhanna caabuqa iyo infectionka way ka hortagtaa oo way dishaa. haddana waxaa ugu fiican qofka inuu sii isticmaalo diinsi inaad isticmaashid oo jirkaada wuxuu ka saarayaa ama uu la dagaalayaa caabuqa ku jira jirkaada. sidaan waan aragnay doctorka wuxuu ka hadlay caabuqa lafaha dhexgala. haddaba wuxuu sheegay saan ka hortagi lahayn. ka hortaga wuxuu sheegay sinjibiisha, qirfaha, xabasoodada. haddaba sinjibiisha ayaan usoo qaadayaa hooyooyinka, hablaha, inamada say u isticmaali lahaayeen. sinjibiishaas saliidda ayaa soo qaada, saliid saytuunka. sinjibiisha lagu darayaa, marka lagu daro biyo diiran ayaad dhex dhigaysaa saliidda, waad ku rogaysaa. markaa sinjibiisha waxaad marinaysaa meesha ruuga ku xanuunaya. hadda dadka waxaan ku leeyahay dad waxay la yaabay xarunan gabadha yar oo aalanta si sinjibiisha loo marsan karaa. sinjibiishaas caabuqa yareysaa, caabuqa ay fiican tahay. haddaba waxa ugu yaab badan hadda hooyooyinka la yaabayaan qasilka ama huruudda ay in far badan ay hindidu isticmaalaan. huruudda lagu leeyahay wajigay marina, isaga maanta nooranayaan isticmaala. huruudda waxaa lagu daraa caanaha calciumka laga helo. huruudda iyo caanaha la isku daraa, waa la karkariyaa malqacad ama malqacada yar ayaad isticmaalaysaa, waxaad ku daraysaa caanaha. marka yuus gareysid waad cabaysaa. waa habeenkii marka sii seexanaysid. taas caabuqa laabatooyinka ayay u fiican tahay. saliidda ama miraha yaryar ee saliidda ay hooyooyinka isticmaalaan, ay rugaga ay badanka hooyooyinka waaweyn ay u isticmaalaan, kaasuu fiican yahay. xataa cabitaankiisa aad buu fiican yahay inuu qofku cabo, waayo
omega 3 ayaa ku jirta. milixda ingiriiska ama milixda ama anagu naraahdo cusbada buuraha ay dadku yiraahdaan buuraha laga keenay cad, taasoo inta la tumo oo la fahla mariyo meelaha ay ku xanuunayaan way u fiicanta waxay nuugtaa. bal amiran ka dhaxgale waxa gadan waxay noqdeen waxyaalaha dabiiciga sidaan ognahay guud ahaan gabdhaha marka loo fiiriyo waxyaalaha asaasiga ah oo soo qaataan maadaama ay guriyada ay joogan badan marka ay ku xisaabtamaan waxa amira ay kula dadaasheen marka dhanka iyo hooyooyinka marka fadhiya ama marka mar walba aanan sameyn karin tabriinaadka iyo marka mutawaatilka ee qofka inuu sameyn karin, laakiin sidaan ognahay doctorka qaabka ku dhawaajiyay guud ahaan dhanka iyo arrimaha tamriinka guud ahaan taa waxay qosaysaa qofka marka mar walba laazima tabriinaadka ama jimicsiga. sidaan ognahay jimicsiga wax badan baa isbedelay, hadda telefoonada qaar baa lagu xamilaa oo jiimka hadda lagu sameeyo maxaa la dhihi jiray gudaha ama lacagta loo bixiyo oo loo tago. waxaa jira jiim marka dhanka iyo gacmaha murqaha loo sameeyo, jiim waxaa jira oo dhanka caloosha loo sameeyo, jiim waxaa jira oo loo sameeyo dhanka iyo lugaha loo sameeyo oo jiimanka asaga hadda kala baxay guud ahaan marka qof walba marka gurigiisa asagoo joogo wuxuu isticmaali karaa barnaamij waxaa jira oo marka guud ahaan marka ay diyaariyeen rag marka isxilqaamay marka ay ku soo dhaxdhigeen qofka marka asagoo gurigiisa joogo hadduu isticmaalo waxaan filayaa inuu kaga badbaadi karo asagoo toonti iyo sanjabiishiga asana u tagin oo kaliya marka asagoo wasaqda iskaga saar dhanka iyo arrimaha xirqiga. jimicsiga laftigiisa isaga wuxuu keenaa caabuqa lafaha markuu qofka aanu garanaysa loo jimicsado saxa, taas waxaa keentay qofkii oo dhacay ama qofkii oo lafaha meelaha lafaha ay kala baxaan, taa waxay keentay caabuq. jimicsiga waxaan dhalinyarta waxaanay kusii dari karaan mawaadda dabiiciga waayo dawooyinka saan ognahay waxay leedahay raadin gaara iyadoo qofkii daweynaysa haddana raadin gaara cudurro kale ay kusii beeraysa. bal amira sidaan ognahay jimicsiga marka u fiirino qofka jimicsiga sameeyo rheumatism iska daayay waxyaalaha cudurrada caadiga iska fudud xitaa qofka jirkiisa uma soo gudbi karo. marka ana tan aan ku boorinayo waxay tahay bal jimicsiga iska sii wata waxa jira rag badan ay ku bada ciyaareen marka ay ku fiican yihiin markay guursadaan ama da yar ay gaaraan ama wax yar marka fudud ay tagaan laga yaabo jimicsiga ku badi iyo waxyaalaha fara badan bal limeliya ku bada oo kaliya dhele, laakiin waxa jira waxyaalaha fara badan marka qofka gurigiisa ku sameyn kara qof kullama mar walba oo ziyaada sameeyo oo jirkiisa oo ka taliyo waxa arkaysa waxyaalaha cudurrada yar yar sida rheumatism iyo waxyaalaha fudud ee lafaha ku dhaca inuu marka qofka ka badbaadi karo guud ahaanba. haddaba aniguna kaygaan kusoo noqnay ayaa kii aslan islaamahan yara taageera anigu yahay iyo qirfaha iyo waxaan ku daraynaa caanaha. haddaba hadda maanta oo dhan ka hadlayno faa'iidooyinkay leeyihiin ma soo koobi karno dawooyinka lagu leeyahay laabatooyinka infekshanka ku dhaca. haddaba dadweyne qaybta saddexaad baan gelayna qaybta ciyaaraha bal kusoo dhawaada xayisiinta. subaxdii baan soo kaca salaadeedan ooga suuradeedan aqrista subxaana allah walxamdu lilah subxaana allah walxamdu lilah. meel ma aado maskaxdeedan cilmiga ku mashquul
subaxdii baan soo kaca salaadeedan ooga suuradeedan aqrista subxaana allah walxamdu lilah subxaana allah walxamdu lilah. daawadayaal kusoo dhawaada qaybtayada saddexaad qaybta ciyaaraha bal cabdi sataar maxaa noo haysaa maanta guud ahaanba sidaan ognahay waxaan ka bilaabayna dhanka iyo xidigii ee weerarka ahaa ee reer Portugal Cristiano Ronaldo oo markaa asagana xalayto ciyaartiisa uu ciyaaray sida uu xaqiijiyo iskoor cusub oo u dhigo guud ahaanba markaa iskoor ay soo mareen 6 qofood ee ka horeysay guud ahaanba asagoo rabay inuu gaaro gooshiisa ama goolihiisa 700 ama 700 inuu dhaliyo asagoo inuu ka faa'iideysto fursadda markaa iskoor cusub sida uu dhigo balse hasaba ahaatee Ronaldo sidaan ognahay marka la isku daro horyaalada intuu soo ciyaaray iyo marka inta qaranka u dheelay horyaalada wuxuu dhaliyay 606 goolad oo dhaliyay dhanka iyo qarankiisa marka loo fiirin wuxuu dhaliyay 9 gool oo dhaliyay ama 93 goolod oo ka dhaliyay marka la isku darana waxay noqonayaan marka halka waxay noqonayaan 64 ama maxaa la dhihi jiray 64 goolod bay noqonayaan guud ahaan marka la isku daro goolashiisa marka ciyaarihiisa oo dhan intuu ka bilaabmay ciyaartooygan shaqada ayaa intaasoo gool ayuu dhashay intaasoo gool ayuu dhaliyay waa taan marka xidigada khaariqa la dhaho dadka adduunka ee lala yaabo ayuu ku jiraa in intuu ciyaaray inta kulamo uu ciyaaray ay ka badan yihiin inta gool oo dhaliyay laana waa naadir in oo xidig waaxid uu dhaliyo 700 gool oo u dhawaada xitaa uu dhaliyo maadaama xalayta ciyaarta ay dhileen kadib ayadana faahfaahin fara badan aan ka bixin doono guud ahaan laakiin Ronaldo markaa asagoo rabay inuu isku diyaariyo iskoor cusub inuu dhigo laakiin ma suurta gashay mise ma suurta galin waxaan ku ogaan doonaa wararkeena dambe guud ahaan bal in ha u gudubno dhanka iyo war saxaafadeedka Ingiriiska ee la isla dhex wareegaya ee guud ahaan wargeyska The Athletic dalka Ingiriisiga ayaa ka sheegaysay kooxda Liverpool bal inay ka dhici doonto ama ka hari doonto koobka ee lagu magacaabo Carling Cup ee guud ahaan sidaan ognahay Ingiriiska waa koobka ugu fara badan meelaha laga ciyaaro oo 3 koob adduunka ugu muhiimsan baa laga ciyaaro guud ahaan sidaan ognahay waa horyaalka ee Premier League Ingiriiska guud ahaan laga ciyaaro ee ku xiga maxaa la dhihi jiray ee dhanka iyo FA Cup markaa boqorada Ingiriiska ayadana dhigtay ee ku xigtay Carling Cup ayadoo markaa Jordan Klopp asagana uu ku dhawaaqay guud ahaan ku sheegay in guud ahaan kooxdiisa dhibaatooyinka faraha badan ee kula kulmay sidaan ognahay Liverpool waxay haystaa ciyaartooy asaasi ah laakiin fadhiga ama kursiga ixtiraadka marka loo fiiriyana ciyaartooy fara badan aynan haysan guud ahaan marka loo fiiriyo inkastoo xagaagan wax yar ay ka duwan yihiin xagaagii hore maadaama Champions League ay qaadeen dad badan marka ay tabiyeen in Liverpool la soo wareegaan ama ku soo wareegaan guud ahaan wargeyska The Athletic dhanka Ingiriiska ka soo England ka soo baxa ayaa ku sheegay in kooxda Liverpool dib ay ku noqon doonto dhanka iyo guud ahaan maxaa la dhihi jiray Carling Cup qaabka ay hore u wadi lahaayeen bal dhanka kale marka u gudubno Ernesto Valverde oo ah tababaraha kooxda Barcelona ayaa guud ahaan asagana ka sheekeeyay xaaladda guud ee Lionel Messi iyo dhaawaciisa oo ka soo gaaray kooxdii Villarreal markay u baxayeen 2-1 ee ku dhawaada dhaawac uu soo gaaray waa sidaan ognahay kooxda Barcelona asagoo Lionel Messi oo ka maqnaa in fara badan oo ka maqnaa ciyaarihii hore ee bidaayada horyaalka ee waqtigiisa hore ayaa mar labaad 2 ciyaar kadib markuu dheelay kadib dhaawacii mar labaad oo ku noqday Ernesto Valverde ayaa weli cadeynin ama oo ku sheegay guud ahaan inuu dhawaan oo ku soo noqon doono isbuucahan soo socdo Lionel Messi sidaan ognahay Barcelona sida ugu baahan tahay waa sidii markaa waxyaalaha far badan saan ognahay ciyaarihii hore ay ciyaareen oo Messi aanu ku jirin guul darra la beegsmatay marka waxay yiraahdaan dadku waxay yiraahdaan qofkaas waa lagu nuursadaa ama kooxdu uu hogaamiye u yahay mar walbana sidaan ognahay waxaa jiro naadiga dhexdiisa xidig ay ka baqayaan difaacyada qadka dhexe garabka markuu cararayo waa sidii Ronaldo iyo Messi iyo xidiga Neymar iyo rag fara badan waxaa jiro markay kubadda ay wataan dad fara badan marka asaga ay ku mashquulayaan sida ay asaga ugu mashquuleen waxa fursado kala helayo dadkii kale marka ay fursadaha lahaa kadib sidaa darteed goolasha ay ku dhashtaan in badan marka laakiin hasaba ahaatee bal Barcelona ciyaartii xalay dheeshay oo maxaa ka dhacay ayadoo marka Lionel Messi
ka maqnaa guud ahaan ayadana markaa waa kusoo qaadan doonaa bal dhanka kale ha ugu horeyno ciyaarihii xalay dhacay iyo qaabkay ku dhaceen ciyaarihii la sugayay ee markaa ugu adkaay xalay to horyaalada ingiriiska iyo Spain iyo Talyaaniga la wada ciyaaray dhanka ingiriiska ha ugu soo bilaabno maadaama ingiriiska mar walba ay ugu horeysa dhanka ciyaaraha xalay waxaa wada ciyaaray Man City iyo Everton iyo Man City Everton waa ciyaaraha haatan ugu dambeysay waa meelaha ugu adag ee ka ciyaarto saan ognahay Cabdisataar Man City waxay kaga badisay Everton 3-1 taa marka waxaa dareemaysaa awoodda Man City mar walba ay ku socoto shaxda adduunka maadaama ay qaaday 8 iyo Everton ay ku badisay tii hore ahayd haatan ay ku badisay 3-1 Everton marka loo fiiriyo waa naadi marka baaxad weyn marka loo fiiriyo dhanka Ingiriiska ayaamaha ugu dambeeyay guud ahaanba xidiga fara badan ay ka soo tageen dhanka iyo Everton oo Lukaku oo Manchester United uu ciyaaray kadibna uu wareegay dhanka iyo Rooney marka asagana uu ciyaaray guud ahaan bal ha ugu dibna dhanka iyo Chelsea iyo Brighton sidoo ku dhamaatay Chelsea waxay kaga badisay Brighton 2-0 ay kaga badisay naadiga Chelsea kooxda Chelsea marka u fiirina ayadana waxa uu ciyaara xidiga marka aad u daayir oo haatan marka sidoo oo Jurgen Klopp oo ku tilmaamay inay la egyihiin sidii marka ay xidigadii ee Borussia marka uu joogi jiray xidigadii reer dhalinyarta ah ee ka ciyaara Chelsea sidaa darteed ayadana waxay guul fiican ka gaartay naadiga Brighton marka inay kaga badisay 2-0 Everton guusha ay ku raacday tababaraha ee Chelsea oo ciyaari jiray Chelsea ee goolasha faraha badan u dhaliyay Frank Lampard ee marka asagana tababaraha haatan hogaaminaya naadiga Chelsea bal dhanka kale ha ugu dubno Liverpool iyo Sheffield United ayaa wada ciyaaray Liverpool baa waxay kaga badisay kooxda Digala ah 1-0 sidaan ognahay Liverpool ayadoo hogaankeeda weli ku dhagan oo ilaa haatan waxa bareejo aanan galin waxa laga yaabaa horyaalada marka loo fiiriyo xidigada ama naadiyada ay ugu qariibsan qaabka Liverpool qaabka hadda ay ku socoto haatan waa qaab aad la yaab leh inkastoo ay guuldaro kala soo kulmeen dhanka iyo koobkii weyn ee Champions League aan la yaab lahayn xidigada fara badan ay ka soo muuqdeen ee ahaayeen xidigada marka asaasiga ah Mane iyo Salah oo laba xidig Muslim ee Firmino marka asagana weerarka ka wada ciyaara laakiin hasaba ahaatee waxa la filayaa Liverpool ayadana ma sideeda ku socon doontaa maadaama Man City ay soo dhawaanayso Liverpool ay sii ordayso hogaanka ay sii wado bal sidii ayadana ku socon doonto guud ahaan ma fiirina barka dhanka iyo horyaalada Talyaaniga ama Serie A ugu dubno kooxda Juventus iyo Spal ay xalay ama shalay galabtii waxa wada ciyaareen ee ku wada ciyaareen dhanka iyo garoonka Spal ay ku wada ciyaareen Juventus martay oo noqotay ama Spal martay guud ahaanba waxa ka soo muuqday xidiga Cristiano Ronaldo asagoo marka qaaday xidiga ugu fiicnaa ciyaartaas ay qaaday bal meeqa ku dhamaatay Amira 2-0 bay Juventus kaga badisay Spain taasoo hal gool uu dhaliyay xidiga caalamka anigu waxaan ku leeyahay xidig baan ilaahay waa Cristiano Ronaldo aad baan u taageernaa bal guud ahaan marka u fiirino Cristiano Ronaldo iyo kooxdiisa Juventus iyo haatan qaabkay ku socoto waa qaab marka aydan isdirdirgan inkastoo kaalinta labaad ee wali ay ku jirto oo Inter si cararayso oo kaalinta kood ka sii qaadayso laakiin Cristiano Ronaldo ayaa xalayto wacdaro fiican buu ka dhigay dhanka iyo guud ahaan asagoo gaaray kubadiisa 8.7 ee guud ahaan meelaha qaar wargeysyada qaar ee ku soo qaateen laakiin marka gool fara badan naadigiisa uu gaarsiiyay laakiin inkastoo asaga guud ahaan wargeyska ay soo qaateen la filayo inuu dhaliyo 4 gool sida uu dhameystiray maxaa la dhihi jiray 700 laakiin hadda wuxuu gaaray waxa aga haray 700 3 goolood oo kaliya laakiin waxaan filaynaa ciyaaraha soo socdo inuu gaari doono xilli ciyaareedkiisa 3 gool ama hat-trick inuu dhaliyo Cristiano Ronaldo rekoorka caalamka ayaa laga dhaxgelinayaa buugga caalamka laacibkii 7 gool dhashay 700 marka waxay noqonaysaa waxyaalo laacibka marka oo kasii tagay xaalada fara badan guud ahaanba laakiin sabab ahaatee waxa kale oo ciyaaray naadiga Sampdoria iyo Internazionale bal ayadana maxay ku dhamaatay waxayna ku dhamaatay 3-1 sida naadiga Inter wali ay ku dhigan tahay hogaankii ahaa dhanka iyo Spanish ama Talyaaniga Serie A Inter sabab ahaatee haatan ilaa haatan waxay ku tartamaysaa horyaalka qaabkan sanadkan ay qaadileed maadaama xidiga fara badan ila soo wareegtay oo Lukaku Sanchez oo marka ay la soo wareegtay inkastoo Sanchez oo meesha uu ku qaatay casaankii ama maxalli jiray huruudka karka casaanka guud ahaan u dhaadeen ama guud ahaanba Rosaha sida Talyaaniga ee marka laba ciyaar baanu ciyaarayno ka fariisanay inkastoo naadiga sidaan ognahay marka loo fiiriyo laacibka haatan Manchester United ka soo wareegay hal gool buu dhaliyay ka horna wuxuu qaatay dhanka iyo jaaliyo qaatay laakiin sabab ahaatee naadiga Inter wali hogaankii way sii wadaa laakiin goolasha dadka u dhalnaa ilaa haatan waa weeraryahanadii ay ka soo wareegtay dhanka iyo naadiga Manchester United bal dhanka kale ugu dubno Barcelona iyo Getafe oo wada ciyaaray Barcelona xalay wada ciyaartay ciyaarteeda dhashay biduni ama asaga ayadoo Lionel Messi oo ka maqayaan guud ahaan ayna ku badisay 2-0
eber kaga badisay naadiga Khitafi ee ahayd imtixaankeeda ugu horeeyay Valverde inkastoo ay wargeyska ay kusoo qaateen Lionel Messi maqnaaday Ter Stegen ayaa soo daahir waana Porteria markaa ama goolhayaha ee Barcelona guud ahaan asigoo ka badbaadiyay goolal fara badan ee ku badisay si markaa dirqi ah laakiin inkastoo laba eber waa markaa gool markaa aad u fiican ciyaartana waa natiijo ciyaar fiican soo bandhig ama soo bandhigin laakiin mar walba muhiimadda waxay tahay natiijada ay gaartay guud ahaan حصلنا برشلونة ده ميسي هدو كما قيهي ساسي كبحث لكن قول هيا هيدي أيا ماشي تاجن عيارتوي كستا bal dhankan kale Atletico Real Madrid dhankii derbiga la sugayna ayadana markaa waxay ku dhamaatay ciyaarta eber iyo eber inkastoo daawadayaal guud ahaan bataa waxay ahayd armeena ciyaaraha ay nagu talgalnay TV-ga New Africa qaybtiisa afka Soomaaliga ee Atletico Madrid iyo sidan jeedin Real Madrid iyo qaabkii ku dhamaatayna qaab sax bay ahayd way is agmari waayeen oo mid walba midiisa kale adag bay ahaayeen oo hal meel ka wada dhisan yihiin guud ahaan sidan ognahay halka derbina waxa la leeyahay derbiga ee Waria ee Madrid markaa caasimada Isbaanishka guud ahaan ay ka wada dhisan yihiin oo dirasna ay yihiin mar walbana ay kula loomaan dhanka iyo Champions-ka kula loomaan dhanka iyo sidan ognahay laba mar bay isku imaadeen Champions League نهاية أمريكا أقدم بيسي حسب عيارته حكوا دماتي ريال مدريد إنه قاعد جوشة من أول بين يكسر يسوع أتلتيك مدريد لكن أتلتيك مدريد إن فرق بدن إيك قاعد حسب الدعوة الكاوي هي عياره إنه نقول تلقى التي في نيو أفريقيا قبل سافكا الصومالي ما نقول بس واحد ونكسر نتنقل ساعتين تي في نيو أفريقيا كان برنامج كوحنا اللي حررنا نقول عبد الستار الأحمدي وحكوا اللي حررنا ولا شيء ذا أميرة سمير بل أنت برنامج نوع ما قال كلام من السدائيو نبت قليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته